السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي لا إنما أنت حين قادنا وحدتي لبية تمناد كتابك أها العربية بين يديك الوحدة الثانية عشر وعتبك أما با شابتركي لبية تمناد شابتر كان حيوانك سوحية الشباب ودنيرتا أي نكهل دي دونا وعتب كان ودنو كساف سنيهي درسي وحنو قنيا درسي لحدن iyo toddobaad casharka ciwaankiisu wuxuu yahay marxalatu almuraahiqa waa xilliga iyo waqtiga da-yarnimada xilliga da-da yar uu qofku uu ku jiro qaarkood waxay leeyihiin xilliga qaangaarnimada haddaba marxaladaasi xaggay ka bilaabataa xaggayse ku eg tahay qaarkood waxay ka bilaabayaan 10 sano waxay ku geynayaan 24 sano qaar baa 25 sano ku geynaya qaarkood waxay ka bilaabayaan 12 sano qaarkood waxay ka bilaabayaan 13 sano qaarkood 15 bay ka bilaabayaan waxay ku eekaysiinayaan 18 sano qaar 15 bay ka bilaabayaan 9 iyo 10 sano ku eekaysiinayaan qaar 15 bay ka bilaabayaan waxay ku eekaysiinayaan 24 sano wahaakada qaarba meel ayay ka bilaabayaan meelna way ku eekaysiinayaan laakiin marka la isu soo ururiyo كحد الأدنى ماشي أهوسيسة laga bilaabayo waa 10 sano ilaa iyo meesha u fog ay gaarsiinayaan waxay leeyihiin 25 sano marka da'da intaas ku jirta ayaa waxa la dhahaa marxalatu almuraahiqa wa xilliga da'yarnimada uu qofku ku jiro marka casharka ciwaankiisu wuxuu yahay marxalatu almuraahiqa xilliga da'yarnimada al-ab iyo al-khal waxa sheekaysanaya aabe iyo abti ayaa sheekaysanaya al-abu aabihi ayaa bilaabay sheekada wuxuu yidhi anigu qaliqun waan walwalsanahay waan walbahaarsanahay waan murugaysanahay intaba waad dhihi kartaa calabni wiilkayga ayaan u murugaysanahay cumar ah laqad asbaxa wuxuu noqday yakhruju mid baxaya min albeyti guriga ka baxaya mataa shaa markuu doono ayuu guriga ka baxaa wayarjicu wuu soo laabtaa mataa shaa markuu doono walaa yukhbirunii iima sheego بالمكان ماشي الذي ماشاسو يذهب آدي إليه حقيسا ماشا آدينا إيما شيغيو ولا بالاستقاء إيمانا شيغو صاحبادا الذين كواسو يذهب معهم ولتغيو أو راعيو أنا خائف وانبقيا عليه كركس أيان أبقيا وانو عبسانيا وان أبقيا يعني إنو حلابو أيان أبقيا أو ويلاشاسي أي dhumiyaan oo wadada saxda ay ka toosiyaan ay ka leexiyaan oo mataqaanaayay uu mataqaana wiilkii uu iga noqdo mid waxa weeye ciyaala suuqa al-khal abtigi baa wuxuu yiri hada kani shucuurun waa dareen dabiiciyun oo waxa weeye dabiici iska ah waa dareen normaal ah oo lagu yaqaano mataqaanaayay waalidiinta inay u baqaan caruurtooda walaakin hase yeeshee laa tansa ha hilmaamin ha ilaawin waa la dhihi karaa labadaba anna ibnaka wiilkaagu cumar ah atama inuu dhammaystirtay 16 min cumri da'diisii 16aad sanadkiisii 16aad oo min cumrihi da'diisa ah wa huwa isaguna al'aan hadeerto fi marxalati almuraahiqa wuxuu ku jiraa xilligii da'yarnimada ولا بد وحال لغا مارمانا أن تعامله إناد ولد قنتيد بحكمة استحكمة وايه هذا عرور نمدي وصور دافي وحوي مرحلة الطفولة يوحاجرتا مرحلة المراهقة هي مرحلة الرشد باكرة جرا مركا إمك ويلكاغو مرحلة الرشد موسن قارين وحو صور دافي مرحلة الطفولة أو حلقي عنوب نمدى buu soo dhaafay oo xoogay wiil buu noqday kuray ah wuxuu noqday wiil da'yar ah waaya al-abu abiba wuxuu yiri kayfa ucaamiluhu sa ula dhaqmaa bixikmatin si xikmada seebaan ula dhaqmaa al-khalu abi abtigi baa wuxuu yiri yashcuru umar wuxuu dareemayaa al'aan hadeerto bi annahu rajulun inuu nin yahay ayuu dareemayaa oo caruurnimadii uu soo dhaafay يعرف وحو قرانيا ما ينفعه وحا إساقا واحتريا أو فائدة ذوء وما يضره وحا ربايا أو محتروا أهين أيو قرانيا الأب أبي وحولي في الحقيقة
dhabtii xaqiiqadii runtii inta waad dhihi kartaa anigu ucaamil waa ula dhaqmaa cumara wiilka cumar la dhaho ka difli sida carruurta aan ula dhaqmaa sida carruurta ayaan ula dhaqmaa ifcal kada saas samee ayaan ku dhahaa amaba saas ayaabaan ula dhaqmaa waxaa samee ayaan ku dhahaa laa tafcal kada saaha samayn ayaan ku dhahaa qul kada saas dhe ayaan ku dhahaa laa taqul kada saaha dhihin baan ku dhahaa ilbas kada kaa xidho ayaan ku dhahaa laa talbas kada kaa xidhanin ayaan ku dhahaa alkhaalu abtigi baa wuxuu yihi haadaa kani asluubun waa hab dhaqan hasluubun waa hab iyo qaab gayru saliimin aan fiicnayn aan fayoobeyn fi tarbiyati tarbiyada aan ku fiicnayn mucaamalatu shabaabi la dhaqanka dhalinyaranimadu takhtalifu way ka gadisan tahay oo ka duwan tahay can mucaamalati alatfaali sida loola dhaqmo carruurta sayabtacidu wuu dheeraanayaa wiilku oo wuu kaa fogaanayaa cumaru wiilka cumara canka adiga ayuu kaa fogaanayaa waaya wuu kaa waxa weeye cararayaa wuu kaa durkayaa wuu kaa dheeraanayaa wuu kaa fogaanayaa haddii aad qaabkaa ula dhaqantid al-abu aabihi baa wuxuu yidhi haadaa kani maa xadatha waa wixii dhacay ficlan run ahaantii dhab ahaantii fa huwa isagu yaqdii wuu gutaa oo wuu dhammaystaa mucdama alwaqti waqtiga badidiisa maca asdiqaa'ihi saaxiibadiisa ayuu la qaataa oo xaggaas ayuu kusoo dhammaystaa wala araahu maba arkaba ilaa qaliilan wax yar mooyaane alkhaalu abtigi baa wuxuu yidhi qayir bedel asluubaka dhaqankaaga aada la dhaqmaysid maca ibnika wiilkaaga aada la dhaqmaysid taxaawar macahu la sheekayso waxtarim ixtiraam aaraa'ahu ra'yigii aaraadiisa iyo talooyinkiisa ixtiraam wasayacuudu ilayka wuu kuusoo laaban doonaa adiga ayuu kuusoo laaban doonaa waaya haddaad saa ula dhaqantid al-abu aabiba wuxuu yihi jazaaka allaahu ilaahay ha kaaga abaalmariyo khayran khayr iyo wanaag yaa khaala cumar abtigiyow marxalatu shabaab kani waa darsigii 68 ee kitaabkii ahaa alcarabiyatu bayna yadayk wuxuu ku saabsan yahay marxalatu shabaab waa xilliga iyo waqtiga dhalinyaranimada waqtiga dhalinyarta la yahay tahyi-a waa diyaar garow fakir waxaad ka fakartaa fi lijaabati ka jawaabida can ilasilati taaliya su-aalahan soo socda su-aasha koowaad waxay leedahay maa ahamu marxalatin maxay tahay marxaladda ugu muhiimsan fi xayaati alinsaani qofka noloshiisa xilliga ugu muhiimsan ee ugu fiican waa xilligee limaada muxuu u yahay xilligaasi xilli muhima limaada yucdi alinsaanu qofku muxuu u siiyaa fii shabaabihi dhalinyarinimadiisa akhara wax ka badan mima yucdi waxa uu siiyo fii baqiyati cumrihi da-diisa iyo cumrigiisa inta kasoo hadhay muxuu qofku u siiyaayo yacni qofka waxtarkiisu uu u badan yahay xilliga dhalinyaranimada ah oo uga badan yahay xilliga uu da-da kale uu ku jiro waaya amaba da-aha kale uu ku jiro maa ra'yuka maxay tahay taladaada iyo ra'yigaaga fi shaabil kaslaan wiilka dhalinyarta ah ee haddana caajislowga ah maxaad wiilkaa ka leedahay oo ra'yigaagu ay tahay uu yahay lambarka afaraad biayihimaa koodee ayaa tataqadamu lbilaadu wadamadu ay ku hormaraan biquwati shabaabi dhalinyarta awoodooda am mise bikibrati shuyuukh odayaasha khibradooda iyo waayo aragnimadooda labadaas kee ayay ku hormaraan ma dhalinyaranimada awoodooda dhalinyarta awoodooda ayay wadamadu ku hormaraan mise odayaasha waayo aragnimadooda ayay wadamadu ku hormaraan su-aalahan oo dhan jawaabtooda waxaad kaga boganaysaa waxa weeye casharka ayaad kaga boganaysaa laakiinse waa inaad kasii fakartaa sidii aada uga jawaabi lahayd su-aalahan marxalatu shabaab xilliga dhalinyaranimada ahamu marxalatin waa xilliga ugu muhiimsan iyo waqtiga ugu muhiimsan fi xayaati alinsaani qofka noloshiisa wa aklaa tharwatin waa xoolaha ugu qaalisan waa maalka iyo hantida ugu qaalisan iyo khayraadka ugu qaalisan ee cinda alummati ummadda agteeda ah ummadii khayraadka iyo maalka iyo xoolaha ugu muhiimsan ee ay haysataa
waxa weeye waa dhalinyartooda. waayahay wa marxalatu shabaab, xilliga dhalinyaranimadu hiya marxalatu alcadaa, waa xilligii waxa weeye waxbixinta, xilligii waxsiinta, walcamali iyo xilligii shaqada, walinsaanu qofka alladii kaasoo laa yucdii aan bixinin ee aan waxba tarin dadka fii shabaabihi xilliga uu dhalinyarada uu yahay, falaa yucdii ma siiyo fii baqiyati cumrihi da-diisa inta kasoo hadhay cidna waxba ma siiyo. waaya wa kaana waxay ahaayeen kathiirun in badan oo min asxaabi arasuuli, rasuulka asxaabtiisa ah sal alla alay wasalam, naxariistii nabadgelyo korkooda ha ahatee, oo min ashabaabi bay ahaayeen dheh, min ashabaabi dhalinyar ayay ahaayeen, dhalinyarta ayay ka tirsanaayeen. waqad wallaahum wuu u dhiibay nabigu sal alla alay wasalam mas-uuliyaatin, mas-uuliyad iyo xilal kabiiratan, xilalkaasoo kuwa waaweyn ah, xaythu wallaa meeshii iyo markii uu u dhiibay kathiiran in fara badan oo minhum saxaabada ka mid ah qiyaadat aljeyshi, ciidanka hogaamintiisa. waaya halkii uuga dhiibay iyo markii uu u dhiibay saxaabada in badan oo ka mid ah ciidanka hogaamintiisa ayuu u dhiibay saxaabada in badan oo ka mid ah. wa fiihi iyadoo ay saxaabada ku jiraan wa fiihi iyadoo ciidanka ay ku jiraan shuyuukhu lmuhaajiriina, muhaajiriinta odayaasheedii iyadoo ay saxaabada ku jiraan, walansaari iyo ansaarta odayaasheedii iyadoo ay ku jiraan. faqad wallaa wuxuu u dhiibay zayd ibnu xaaritha saxaabiga la yidhaahdo, wa jacfar ibnu abi aalib iyo saxaabiga la yidhaahdo jacfar ibnu abi aalib, wa cabdillaahi ibnu abi rawaxa, wa cabdillaahi ibnu abi rawaaxa iyo cabdillaahi ibnu abi rawaaxa. muxuu u dhiibay qiyaadat aljeyshi, ciidanka hogaamintiisa ayuu u dhiibay fii ghaswati mu'ta, duulaankii loo yaqaanay duulaankii mu'ta ayuu u dhiibay saddexdaa saxaabi, hogaaminta ciidanka ayuu u dhiibay. saddexdaba bartii ayaa lagu dilay, duulaankii ayaa lagu dilay. markii dambana waxa weeye waxaa qabtay oo waxa weeye dagaalkii guul fiican ka keenay saxaabigii la odhan jiray khaalid ibnu waliid, kamaa wallaa si uu ugu dhiibay usaamata ibnu zaydin, saxaabiga la yidhaahdo usaamata ibnu zayd qiyaadat aljeyshi, hogaaminta ciidanka alislaamiyi ee islaamka loo nisbeeyey. ciidanka islaamka siduu ugu dhiibay inuu u hogaamiyo saxaabiga la yidhahdo usaamata ibnu zayd lighaswati ruum, duulaankii lagu duulayay reer ruum si uu hogaamiye darteeda ayuu u dhiibay. wa cumruhu da-diisuna iyadoo ay tahay usaama ibnu zayd 18 sana, 18 sano, isagoo 18 jira ayaa waxa weeye loo dhiibay inuu hogaamiyo ciidankii dhammaa duulaankii lagu duulayay reer ruum. wa arsala wuu diray mucaad ibnu jabal, saxaabiga la yidhaahdo mucaad ibnu jabalna wuxuu diray qaadiyan, isagoo ah qaadi iyo xaakim. waayahay ilal yaman, yaman ayuu u diray si uu halkaas uu dadka ugu xukumo oo uu qaadi uga noqdo. wahuwa isaga oo fii marxalati shabaab, isagoo ku jira xilliga dhalinyaranimada. taxtaaju lummatu, ummaddu waxay u baahan tahay ila shaabi alqawiy, ninka dhalinyarta ah ee xooga badan, aljaadi ee dadaalka badan, alladii kaasoo yucdii bixinaya oo siinaya oo taraya dadka akthara inka badan mima ya'khud waxa uu qaadanayo. walaa taxtaaju uma baahna ummaddu ila shaabi alkaslaan, wiil dhalinyara oo haddana caajislow, ila shaabi nin dhalinyara alkaslaan oo caajislow ah, alladii kaasoo yahtamu daneeya bidacaamihi cuntadiisa keliya daneeya, wa madharihi iyo muuqaalkiisa faqad oo keliya, muuqaalkiisa keliya iyo cuntadiisa keliya, wiil ka fakara waxa weeye ummadda uma baahna. wiilkaasoo walaa yuxibu aan jeclayn alcamala, shaqada aan jeclayn, walcadaa waxbixintana aan jeclayn, nin adugu isaga keliya iska fakaraya oo aan waxna bixin haynin, dadka waxba tara haynin, shaqayna haynin,
وكما سيدي تحتاج الأمة أمضوا أي وباهنتهي إلى قوة الشباب أود أن يرته تحتاج وحي وباهنتهي سيدو كله إلى خبرة الشيوخ ويا أرجني ماذا يخبرد أضياشة حتى تتقدم إلى أي كهر مرتو البلاد ودمض أي كهر مران وتخطئ الأمة ويجفتا وخلط أي كل على أمضو إذا اعتمدت هذا عسكتو على قوة الشباب أود أن يرته وحدهم كليجود وأهملت أي ضيعضه أي بيلهسه أي وحبا كسو قادي ويدو خبرات الشيوخ خبرتها يوايا أرد لماذا أي ليهن أضياشو وهذا كان يعني أن تكون يعني حالة وضع أن تكون إني تهي هناك حلقاس علاقة حرير وإني تهي وايه علاقة يحرير وإن أي تهي حلقاس ومدى دحديده وإن يحرير وكدحيو أن تكون وإن تهي هناك حلقة ومدى دحديده ومدى دحديده وإن أي تهي له علاقة حرير هناك وحلقاس سبحان الله وضع ومدي يضدك علاقة سو يحرير كاسو طيبة وناسا بين جميع أفراد المجتمع بلشدة حبنه إذا لمان تود كاسو كدحيو المجتمع وبلشدي أفرادنا وحبنه جميعنا ودمان حرير كاس وكدحيا بلشدة حبنه